kulantii wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa xuutiyiinta ayaa dib u cusboonaysiiyey duqaynta ay ku hayaan imaaraadka iyadoo ay la socoto booqashadii madaxweynaha Israa'iil Isxaaq Herzog oo xafiiskiisa uu ku sheegay inaysan wax khatar ah ku jirin noloshiisa kadib markii wasaaradda difaaca ee imaaraadka ay ku dhawaaqday in la qabtay gantaal nooca balastiga ah ku soo dhowaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka afhayeen u hadlay milatariga xuutiyiinta ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in uu ku dhawaaqi doono saacada gudahooda faahfaahinta waxa uu ku tilmaamay hawlgallada ballaaran ee milatari ee ka socda imaaraadka dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga imaaraadka carabta ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in difaacooda cirka ay ka hortageen oo ay burburiyeen gantaalka balastiga ah oo xuutiyiintu ay ku garaaceen imaaraadka weerarka ma uusan geysanin wax khasaare ah maadaama haraadiga gantaalada balastiga ah ay ku dhaceen meelo ka baxsan goobaha ay dadku ku badan yihiin ayaa lagu yidhi qoraalka weerarkan cusub ee xuutiyiinta ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha Israa'iil uu booqashadii ugu horeysay abid ku tagay dalka imaaraad iyadoo Herzog uu la kulmay dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheekh Mohammed bin Zayed wuxuuna cadeeyay in uu si buuxda u taageersan yahay shuruudaha ammaanka ee dalka imaaraad kadib markii lagu dhawaaqay weerarka xuutiyiinta ayaa xafiiska madaxweynaha Israa'iil waxa uu sheegay in Herzog uu sii wadi doono booqashadiisa imaaraadka sidii loo qorsheeyayba isla markaana uusan hadda ku jirin khatar ma jirto wax khatar ah oo soo gaaray madaxweynaha iyo waafdigiisa ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska waxaa warbaahinta Israa'iil ka taagnaa xaalad muran ah oo ku saabsan duqaynta xuutiyiinta iyo xilliga uu dhacay xubin ka tirsan aqalka Knesset ee Israa'iil oo lagu magacaabo Tesky Hauser ayaa sheegtay in xuutiyiinta ay isku dayayaan inay carqaladeeyaan booqashadii ugu horeysay ee madaxweynaha Israa'iil uu ku tago dalka imaaraad ayna saameyn ku yeelato xiriirka labada dhinac 17 iyo 24 bishii Janaayo xuutiyiintu waxay la beegsadeen gantaalo caasimadda imaaraadka ee Abu Dhabi iyagoo laba weerar oo loo adeegsaday gantaalaha balastiga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasoo midkii hore lagu dilay 3 qof si ku meel gaar ahna loo hakiyay socdaalka garoonka Abu Dhabi iyadoo warbaahinta xuutiyiintu ay sheegeen in maanta oo Isniin ah la hakiyay socdaalkii garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi taasoo ay sabab u tahay waxa ay ku tilmaameen hawlgallada milatari hase ahaatee maamulka duulista hawada ee imaaraadka ayaa sheegay in duulimaadyada hawada ay u socdaan sidii caadiga ahayd